السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة عشية channel كذا ونسألنا وحذيفة فلوكس كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصب تاعي سبسكرايب يصير صاحب فيديو هذا كيشدنا لايك يصير أدبو ما سنتين أنت سوي لي رجل نساء أدبو ما سنتين صاحب يال إن برنامج كذا صار قبرتين وحبان صوب الدقي شري وحبان كشيكين شري بس عاو واحد ربع إن إذنك وحيدين فيديو in badan baa su'aalaha soo weydiiseen youtube-ka ka waran kan ka sheekay kan ka waran waxa baan ka soo jawaabay xawa xuji kugu tahay inaad ka jawaabto su'aashan waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Soomaalida iyo social media sideedaba social media waa guri dunidoo dhan ku wada jirto amba aqal ay dunidoo dhan ku wada jirto qaabab kala duwan baa looga faa'iideystaa nooc doon ha noqdo Soomaalidii maxaa intii xumaydoo kaliya aqalkii xumaa oo maxaa albaabkiisa u furay oo aqaladii kale ka soo xiray koodii caanka ahaa haldoorkoodii youtuberkoodii rapperkoodii wixii way haystaan rapperka waan gartay oo iyagu de rapka laftirkiisa yaaba kharaaba ka waan gartay baanigu laakiin day and night dadkan isku dhagan ee youtube-ka isku haysta ee maalin kasta fariin iyo ceeb iyo gabadh ilin laga keeno iyo wiil ku dhagan iyo mid xaasidiye iyo mid sidan kan iska laalaadinaya social media iska laalaad bas ku soo aruuray qaab badan baa loo kala faa'iideysan jiray maalin iyo laba oo niga dhageysan karnaa waa la istagaalay oo waa niga bariisaynay oo views baa niga raadinay laakiin taxanaan sirigan dagaalka muxuu ahaa one week social media Soomaalidu nabad ma noqdo one single week nabad ma noqdo maxaa dhacay ma dadkan dad kala qabtaa la waayay ma dadkan abadee shaqadooda inta noqotay dadkan ku xidhanay team hebel ay loo bixiyay idinku maxaa tiin ma ololayaasha dagaalka ciyaasha tiin miidan dadka kala qaban miidan xataa waxaan arkay qaar reaction ka bixinaya oo ka bariisaynaya dagaalka laftirkiisa oo hebel saas uu yiri ha heblayna saasay tiri ha saasuu ka wadaa bul wariyaadeen haddaynan dadka kala qaban karin warhan heshiisiino haddaynan heshiisin karin aynu ka gaabsanay bal su'aalahan iga jawaab aniga qof kasto caana waa hal door ay bulshadu ku daawato qaar baa role model ka dhiganaya culimada role model maaha caalimkuna role model maaha qof kastaba qofkan kale lifestyle-kiisa oo ka heli kara qaar badan baa lifestyle-ka youtuberada Soomaalida ku haysta dhalinyar badan baa jirta maanta waxay tamay adduunka halka Brito waxay tamay maxaa dhacay oo wax dadkan qabto iyo wax ad xeerisan midna jira miya haddii yani halkii ugu dambeysay iga gaadho stage ugu dambeeyo qofka looga xaajoodo amba qofka wax laga weydiiyo halkii dadkan yaa dhalay macnaha aan ka wadaa dadkan yaa looga dacwoodaa macnaha limit ba mari wuxuu ceeb maalin kasta taagan cay maalin kasta taagan wax fariin cay aan hayn la isku gudbiyo qof aan caytamina lama dhageystaba waxaan jeclaan lahaa fariinteeda inay gaadho dadka caanka maxaa dhacay oo kuwa caanka horta iyagu kuwa qaar waaba kuwa aan ka yaabayba way ka sii dhaxbariisayaan dagaalka laftirkiisa kuwa istagaalayna wax macna la isku ma haystaan hadii la baaro maanta hiblaya halkan ka baxday barigo sidaan ugu yiri come on guys soo niga ragahayn oo yeesheen bartay u shaqo dhuftaan waa lagu kala yaaci jireenayo maxaa dhacay iyadoo hadda la xaliya hadda la istili hadana Brito la soo caay video la soo fadhiisan de barigo rag gacan bay isku qaadi jireen afkan yaa aamusin karaya afkan qaab si fiican ugu hadla dad baa in daawada dad baa role models u tihiin dad baa idin ku xiran dad baa waxaan ku guuri in ugu dayanaya oo raba inay heerka gaadhaan oo hami inigu haminaya min fadlakum dadka ka soo hagaaga bulshadana waxaan weydiinayaa shacabka u tuma dadka maxaad ka faa'iidaan idinku labada maalin kasta is haysta hebel adaa le keep going adaa kule garaac adaa kule halka ceebtiisa soo faq maxaad ka faa'iidaan aan weydiiyay haddaad tiimkiisa tihiin oo runiga tahay daacadniga tahay maxaad khaladka uga qaban weydaan oo saxda ugu taageeri weydaan maxaa idinku kalifaa idinkoo wax wanaagsan sheegi kara haddaad qufaclaan waa inay dhageystay maxaa dagaal inagu kalifay inay dhageysto teeda kalena bariis dagaalkiinu macnaha yani bariiskiinu dagaal meel kale ma galamiya maxaa dhacay waa dagaal taxana aan dhamaanin waa siri caadi oo niman yahow bulshadan role model baa u tihiin de sidan isma
sidan u dhaama ummadda. at least dadka dad baa kala qabta dadkii dadkan kala qaban lahaa. idinka laftigiina youtuberadiina aan dagaalka ku jirin beritoole iyaguna dagaaladii nool ileen maalinba laba is dagaalaysee dadkan ma kala qabataan miyaa, ma kala dhex gashaan miyaa? ileen dadku hadda tol iyo ehel layskuma raadinayo, social media laisku dhexaystaa oo social media ehel iyo waxaas shaqii shuqulku ma leh. maxaa dadkan layskugu daawadaa? maxaa dadkan reaction looga sii bixiyahay oo looga sii faalloodaa hadalladoodii caydooda? ma youtuberka iyo rapper kuwa ma isku shaqa macnaha? ummadda ku xidhan dadka caanka ee inta badan daawada, bal waxaan rabaa idinka laftigiinu ololaha dagaalku aad ka qayb qaadataan oo idinka wax laynagu yahay fikradihiina iyo bal ma isku daydeen dadkan inaad la xidhiidhaan? ma isku daydeen inaad dadkan toosisaan? ma isku daydeen in aad at least muujisaan inaydan dagaaladan iyo waxan yani niyadiinu ku faraxsanayn? waxaa jira awlaad hadda soo korayso inay daawatan, waxay rabaan role models, waxay rabaan dad ay ku daydaan. laba qof oo maalin kasta la kala qabanayo role model ma noqon karayaan. waana dad haldoorkii bulshada weeyaan ugu horhoreeyay. dadkii hogaaminayay social media ayaa day and night is haysta. day and night ceebahay hadda kahor waxay wada sameeyeen ka sheekeeya. raganimadu saas may ahaan jirin, awooyaasheenna waxaa may samayn jirine dee dhaqan aan Soomaali ahayn oo Soomaali lahayn miyaa waxani? mise wax cusub oo hadda dee Soomaalida cusub la timid ileen awooyaasheen waddo ay mareenba ma hayne? su-aalahaas baan u baahnaa inaad iga soo jawaabtaan. waxaan jeclaan lahaa in dagaaladan iyo waxaan laga odayeeyo oo la qaboojiyo. ceeb mooyaane single advantage oo laga helayaa ma jiro waxaas la daawanayo maanta.